gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamuud Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dhisme maxkamad cusub oo ay yeelan doonto degmada Qoryaale oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn gobolka Togdheer. Dhismaha maxkamadan cusub oo ay hirgeliyeen maamulka degmada Qoryaale ayaa waxaa munaasabadii xariga lagaga jaray ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamuud Cabdi, taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Salebaan Ducaale Ubaxle Dhagacade iyo saraakiil sare oo ka socday maxkamadda gobolka Togdheer iyo maxkamadda rafcaanka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale garyaqaano ka socday xubnaha garsoorka ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamuud Cabdi ayaa tilmaamay isla markaasna ammaan u soo jeediyay maamulka degmada Qoryaale, waxaana uu sheegay inay muujiyaan waxqabad la taaban karo taasi oo uu ku ammaanayo mashaariicda horumarinada ay ka fuliyeen degmada Qoryaale. إلا بدوين وأي كعمل سيستان هذه بعضكم ما دقينا وعن السوق شديدة بعض عدالة هذا ينقطع بلوسكا هذا يتم محكمتها هذا يتم حرارتها هذا يتم كابياش عدالة وحين راح يكبرين عدالة إلى يوم السوق لأنه محكمتنا نقطة محكمة عدالة سقطة وأنا نبات كيما أو نقطة كل دلاشة وحي يرى أول هذا وحي أول هاي محكمات كله قدرنا طاردي هذا صار في شيء كشغل هذا كفريان وحنا ديسو كذا عدالة إلى لسان إلا السوق قفط وحنا قدرنا عدالة ووقتين ما أنت ملحوينها جمهورية الصومال إلى أحمد محمد سيلايو وحققت القرآن هذا محكمة وحنا وصل أقويها وحقرت فربنا هاي ديسو كسرتنا لها يلا أي ساعة شروع لي أنا ذاك لكن لها محكمة وهرنا ولو قلت لنا قد مرة محكمة ولا شرع تجده والله ما قعابي قدومية محكمة عصب والله ما قعابي شرعية قان هذا يقان جود وأنا هرنا تري أدور عصب سمايسي وأنا يصاص عندهم إلا قمت يوم دونتا dhanka kalena gudoomiyaha degmada Qoryaale Bile Jaamac Muuse ayaa isaguna ka warbixiyay xaaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismahani iyo sidii ay dawladda hoose ee degmada Qoryaale ay ugu suura gashay hirgelinta dhismahani maxkamadda cusub ee ay yeelan doonto degmada Qoryaale. Gudoomiyaha degmada Qoryaale waxaana uu sheegay in dadaal dheer kadib ay gaadhin nooca iska rogada loo yaqaano ay u soo iibiyeen maxkamadan cusub ee degmada Qoryaale, taasi oo laga soo siiyay sida uu sheegay qiimadha $20,000 Mareykanka ah. taasina ay ku timi buu yiri dadaal dheer oo ay galeen maamulka degmada Qoryaale iyo dadweynaha degmadaasi oo iskaashanaya. ninkan casada jaamacadan cadde ilaahay ha saacido tanna nala dhisay oo dhisay gaarigana naga iibiyay $20,000 buu naga siiyay waa lagu dulbaayay iyadoo kaashkii daryeel dul haysaaba aanu nidinooda anagoo uu naga yaal $20,000 buu naga siiyay $8,000 waxaan ugu talagalay inaanu ka bixino karka degmada 12 kale dawladda dhexe ayaa naga bixinaysa processkii bay maraysaa anaga gudida fulinta degmada hadawna waraaqii soo qorayna barasaabkaanu u keenaa isaguna wuxuu raacinayaa tiisi dawladda dhexe naga bixinaysa hadii ilaahay ka dhigo waan badiyay waxaan ku soo gabagabeynayaa qofka marka la magacaabo ee meel la geeyo waxa loogu talagalay inuu bulshada u adeego inuu gurigiisii iska tago loogu talay annagana mas'uuliyiinteeda degmada joogta waxaanu intiina noo timi iyo inta kale halka joogtaba ka baryeynaa in aan loo ducaysaan haween badan baanu gelaynaa waxa laga yaabaa haddaanu isrago helay inaanu wasaaradihii oo dhan wixii aanu guriga u dhisi karo inaanu ka hawlgalo annagoo ugu horraysiin doono wasaaradda macdanta iyo biyaha. munaasabadda ayaa intii ay socotay waxaa sidoo kale hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin taliyaha qaybta ee gobolka Togdheer Salebaan Ducaale Ubaxle Dhagacade iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday maxkamadda iyo saraakiil iyo garyaqaano ka socday dhammaantood gobolka Togdheer, kuwaasi oo dhammaantood ballan qaaday sida ay uga go'an tahay la shaqaynta iyo howlgelinta maxkamadda cusub ee ay yeelan doonto degmada Qoryaale, taasi oo wax badan ka tali doonta baahiyaadkii kala duwanaa ee ka jiray degmada Qoryaale. si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa indha u kala furidda maxkamadda cusub ee ay yeelan doonto degmada Qoryaale, mid la filayo inay haatan wax weyn ka tari doonto baahiyaadkii kala duwanaa ee ka jiray deegaanadaasi, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo maxkamadda degmada Qoryaale iyo mas'uuliyiinta ka howlgeli doona inay dabari doonaan howlihii markii hore loo soo qaadi jiray dhinaca gobolka Togdheer in haatan looga baahan yahay in ay dabarto maxkamadda cusub ee degmada Qoryaale. Salebaan Sahal Jaamac, shabakadda wararka Aynaba News, magaalada Burco.